السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم wanaagsan isbuuc wanaagsan kusoo dhawaada effect Somali review waa anigoo sakriye ciise cusmaan halkaa idin kala hadlayo soo gudbinayo insha allahu tacaala suuqa isbuuca murajacadiisa hadduu alla idmo isbuuca soo socdo waxa la filan doono isbedelka la filan doono insha allahu tacaala waad ku mahadsantihiin daawashada videogan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad hala share gareeyo subscribe like everything and also muxuu ahay buttonka gambaleelka hala saaro click si markii ugu horeyso isbuucii ama maalinyo sidaan usoo gelino uu kugu soo dhaco insha allahu tacaala oo aad ula socoto after that adigana fikirkaaga aad ku darsato haddii aan maanta ku bilaabo insha allahu tacaala oyalka isbuucii hore waataan dhahnay alxamdulilah markii ahayd 1 October ilaa 5 October bay ku ekeed waadna aragtaa in qiimihii 1 October baygii aan dhahnay alxamdulilah qiimihii ilaa uu gaaray 76.78 kaasoo qofkii galay 1 October ama 8 meelahaas soo galay qiimahaas wuxuu ka hayay 300 ilaa 400 pips so marka waa big profit waa 1 week only muxuu ahay inaad ka qabato 400 pips ilaa 350 pips marka insha allahu tacaala guul baa idinkaga rajeynayaa haddii aan usii galo oyalka isbuucan wax la filan doono uu samaysan yahay oyalka resistancegii waa uu jebiyey maadaama resistance uu jebiyey support baa laga raba laakiin waa uu soo laabtay qiimaha structureka sidaad u aragtaan insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu sidaan noqdo 4 saac haddii aan tagno structure sidaan buu noqonayaa waa uptrend buu ku jiraa waa support here so maasha allah 28 September waa kana qofkii galay oo kale I think 1 October in this year buy baa laga gal maadaama in this year resistance support isku bedelay qiimihii aad aragtaan in 1 October qiimihii si fiican u kacay 73.83 ilaa 73 so marka waa 76.85 385 pips qiimihii inuu gaaray maasha allah mar kale supportihii hadduu inta ka dhigto oo mar afraad oo test uu ku sameeyo qiimaha waxaan rajeynayna kor hadduu soo jebiyeyna insha allahu tacaala in this area support here after that resistance after that qiimaha inuu soo dhaco baan rajeynayna insha allahu tacaala haddii aan u galno ban USD isagana aan fiirino ban USD last week waxaan rajeynayaa inaad qiimihii aad ka faa'iideen maadaama uu soo dhacayay dollarkiina uu kor u socday Friday waxaa lagu xiray uptrend price actionka in this year baa aniga aan ka galay waad ujeedaa maasha allah weli muusan gaarin take profitkeyga balse waxaan rajeynayaa inuu gaaro hadduu alla idmo qiimaha waa uu jebiyey structure uu samaysan yahayna waa uptrend inuu hadda bilaabo balse correction buu ku jiraa haddii qiimaha uu sidan u noqdo uptrend here inuu noqdo in qiimaha mar labaad oo retest oo ku sameeyo retest here oo ku sameeyo qiimaha aad aragto buy insha allahu tacaala muxuu ahay qiimaha waa buy haddii kalena inuu si toos ugu sito meeshaan area after that qiimaha uu soo dhaco ilaa uu imaado 1.3075 hadduu allayno waxaan kaloo aan fiirinaynaa last week oo isagana kamid ah pound New Zealand waad aragtaa qiimaha up weeyaan maadaama trainkan uu jebiyey maasha allah waxaad aragtaa in qiimaha uu si fiican waxaad u malaysaa last week haddii aad fiiriso muxuu ahay inuu kacay 600 pips
inuu kacay baad filaysaa marba hadduu trainka uu soo jebiyey waxaad aragtaa in qiimihii uu buy fiican ahay waxaadna aragtaa in this year inuu yahay support resistance iyo uu supporti ka dhigtay haddii aad aragto then oo qiimiga soo kaca maasha allah waa kana waa aniga waa ka faa'iidaystay waxaan rajeynayaa inuu hadda soo taabto 2.0 in this year inuu soo taabto baan rajeynayaa hadduu alle insha allahu tacaala ku aadan tahay 2.0439 after that qiimaha inaan kaga faa'iidaysano sell area haddii aan ku aragno in this area insha allahu tacaala up to here ilaa up to here insha allahu tacaala duusan jibinin weeyaan hadduu alle soo marka la socod wanaagsan waxaan kaloo fiirin doonaa hadduu alle pound Australian isagana pound Australian waad aragtaa pound Australian qiimaha waxaan ku sugeynay in this area oo Australian maadaama uu soo baxayay qiimihii waxaan sugeynay in Australianka intuusan getting up and hoos asiga loo soo celiyay kadib interest rate-ka negative soo baxo after that negative markuu soo baxo qiimihii waxay noqonaysaa in pound Australian iyo lacagaha Australianka kasoo horjeeda inay kor aado balse meesuu noqon waxyaroo cuskaday waa uu taabtay intiisiya waad ujeedaa intiisiya wuu u taabtay waxaad u malaysaa 1.860 ilaa iyo 1.80 adiga 100 ilaa 40 pips inuu qiimihii hoos usoo dhacay ka dahab oo qiimihii mar kale oo si toos uga baxay maasha allah waa ujeedaan waa kaya oo ku calaamadaystay structure-keyga in qiimihii maasha allah uu kor aaday waa uu sii dhaafay xitaa resistance baan ka sugaya balse qiimihii waa uu sii dhaafay waxaad aragtay inuu jibiyey then uu socod yar uu sameeyey oo mala sometimes fake breakout uu samayn karaayo waxaa waa qiimaha hor lagama gaaro ilaa kan dhal sidan u weyn amba kan dhal ku tushin karo ama confidence ku gelin karo sometimes waa laga yara fiican yahay haddaadan riskiga haddii markaas oo kale aad gelayso lot size yar waa inaad ku gashaa oo ma ku geli karta lot weyn sababtoo ah risk weeyaan so I think inta baan uga haray maasha allah kaasoo ah 1.8 180 200 pips maasha allah waa isagana waxa uu sii socdaa haddii aad u fiiriso waxa uu sii socdaa markuu trainka kasoo baxayba 181 ilaa 86 waa 550 ilaa 60 pips ku dhawaad waa uu soo socdaa maasha allah haddii aan fiirino sidoo kale pound haddii aan fiirino pound switch-ka isagana sidoo kale pound switch waataan isagana ka hadalnay last week oo aan dhahnay qiimaha in inta lagu furay meelahan in this area October morning-ka bay ahayd in this area in qiimaha oo imaan doono here oo haddii aad aragto dailiga resistance haddii meeshaas ay noqoto inaan sell fiican aan galno sell fiican inaan galno waa ujeedaa support iyo resistance iyo maalinta ku xigta uu soo degay balse poundka waad aragtaa inuu usoo jibiyey kaasoo ah haddii aan ku cabirno noqonayso 100 in this area oo kale ama in this area oo kale qofkii ka gaday qiimaha inuu imaaday 100 pips ilaa 150 ilaa 130 so marka qiimo mar walba uu socdo entry point-gaaga baa la keensadaa ama 10 pips 20 pips after that haddii xitaa qiimaha sidaan kale ugu soo laabto inuu kor aado waad aragtaa inuu mar kale oo retest ku sameeyey waad suuqan sinaba inaba loogama fakanayo waxaa waaye haddii confidence fiican adigoo ku haysato hadda fiiri retest mar waa pinbarkaan fiiri inverter marka so marka waxaad confidence baa ugalaa inaad sell kale aad gasho sida darteed marka waa uu soo jibi so maana gala markaanoo kale qiimaha waxaa la galaa sell ama buy oo loo diyaar ah baa lagu galaa after that qiimaha markaad aragto inuu sidaanoo kale u dagaadhigay adiga oo ka faa'iidaysanaya scalping oo kale waxaa la sameeyaa
lot kale waxaa lagu galaa hadduu alle idmo weyn oo adiga akoonkaaga ku manage garaynayso si aad uga faa'iidaysato. waa uu ka baxay after that markaan arkay inuu qiimihii ka dhex baxay losskaygana waa soo dhaweystay awalka hore markuu intan imaaday waa already oo iga qaaday ilaa waxa aan jeclahay 40 pips inaan wax sidaas camal ahayd. awalka hore areas bay ii taalay laakiin waa soo dhawey maadaama qiimihii uu sii socdo iskuma haleyn karo insha allahu tacaala. waxaad arkaysaa marka in haddana baan switch maadaama uu jibiyey maasha allah inuu si fiican u socdo oo aan arkay in qiimihii ka baxay qiimihin kalena oo ka baxay in muxuu ahay oo bahay fiican u yahay. waxaana gatay khamiistii baan gatay xilli dambe baan gatay markaan arkay inuu qiimihii uu sii socdo maasha allah. waxaan kaloo u gelaynaa waxaan rajeynayaa in pound switch isagana intaana ka bixin inuu gaari doono in this area 1.3027 in laga celiyo kadib usoo laabto ilaa inuu inta gaarno rajeynayaa 1.3112 oo ay ka dhimantaa hadda 100 pips qiimaha waa rajeynayna hadduu alle idmo insha allahu tacaala. waxaan kaloo fiirin doonaa hadduu alle idmo euro USD baan fiirin doonaa isagana. euro USD waad aragtaan last week area sal waan ku sugeynay areana parliament baan ku sugeynay maadaama qiimaha duu soo jebiyo in inta uu support fiican u yahay oo aan kaga faa'iidaysan doona hadduu alle insha allah. waan aragtaan 2 October Tuesday inuu dhimaaday maasha allah. qiimihi aad aragto inuu retest kale ku sameeyey another sale kale uu sameeyey waad aragtaan maasha allah. qofkii labada mar ka faa'iidaystay ama hal mar waa maasha allah. waa anytime waxaa waaye profit ba haddaa ku jirto waxaa waxa yaraada ha badnaado waa sale insha allahu tacaala. waa la gaarayaa meesha ugu sarreyso alle qiimaha haddii marka ilaa inta waa rajeynaya hadda inuu gaaro 1.1574 maadaama fridayda qiimihii uu muxuu ahaa nenford bayerka uu hooseeyey sidaas darteed marka euro USD iyo waxaan rajeynaya inay hoogaa yar kor yar aadaan insha allah. laakiin structureka euro USD haddii aad fiiriso wuxuu ku jiraa downtrend buu ku jiraa sidaas darteed marka qiimaha buy degdega lama geli karo hadduu alle idmo insha allahu tacaala ilaa xaaladda sidee u dhacdo. waxaan kaloo fiirin doonaa hadduu alle idmo insha allah euro australian isagana sidoo kale aan sugeynay isbuucii hore kaasoo isagana aad aragtaan muxuu ahay australiankii aan ku sugeynay interest ratekiisa iyo ratio saleskii oo ku jireenba. waxaad aragtaa in qiimaha supportigii aan ku sugeynay in this area inuusan soo gaarin laga celiyey in this year laga celiyey aad aragto in qiimi markale uu ku magaalay soo laabtay then qiimihii oo ka baxay waa so waad aragtaa sometimes newska iyo trade everything waa iskeenaa sometimes waa iskhilaafaa. sidaas darteed marka qofku waxaa laga rabaa structurekiisa sometimes structureka la raaca sometimes newska la raaca suuqa mar walba directionka u socdo lama khilaafo. hadduu news uu ku socdo newska soo baxay oo newska jihadii newska haddii uu qiimihii uu sheegay in pound oo kale hoos u noqonayo oo aad aragto poundka hoos ah haddii structurekeyga uptrend waaye muxuu ahay qiimaha abaa u gadanaya ha ka hortagin. hadduu structureka signalka iyo graphs uu samaysan yahay oo kuu sheegayana haddii newsa soo baxay isku fiiri hubi markaad aragto inuu hubsan yahay oo fiican yahay howgal hadduu alle idmo insha allah. waad aragtaa qiimaha inuu jibiyey mar baa inuu soo jibiyey maasha allah. waxaad aragtaa inaan galnay indis haddana waxaad aragtaa inuu resistance area uu ku dhow yahay. resistance areana 4 saac oo hadda ab lagu xiray balse waxaan rajeynaynaa in haddii resistance fiican oo aan ka aragno in qiimaha xoogaha hoos loo soo rigi doono insha allah. haddii uu soo jibiyeyna another bullish ama another buy inaan ka faa'iidaysan doono hadduu alle. aan ku xijiyo euro New Zealand isagana last week asigana aan ka faalownay waad aragtaan qiimaha inaan isbuuci hore aan kaga jiray 1.7512 areadaas waa
qiimaha wuu kasoo hoos yar baxay wax yar sidaas aan u weynin, balse maasha allah qiimihi waxaad aragta inuu pulish fiican oona tusiyey maasha allah aada aragto inuu muxuu ahaa qiimihii up trend uu galay. New Zealandna sidoo kale isagana waa usoo dhacayay, iyo New Zealand baan New Zealand waa up bay ku socdeen, qiimi markuu soo jibinay another tahay insha allahu tacaala. So marka waxaad inta aad ka aragtaan inaan ka hayno in this year 150 pips, in this year isagana sidoo kale 140 pips areas masha allah. So haddii isku dar waxay noqonaysaa 290 pips, 200 pounds Australian, pound New Zealand masha allah. So weygii hadda dambe waxay ahaayeen waa wonderful bay ahaayeen, muxuu ahaay waa qiimaha up bay ku jireen, waana long baa lagu jiray masha allah. Aan u tago Australian USD isagana aan isbuucii hore sharaxnay. Australian USD waad aragtaa in qiimihii uu soo degay, inuu hadduu inta support area hadduu resistance ka dhigto insha allah inuu qiimo hoos aadi doono. waadna aragtaan qiimaha inuu hoos aaday, laakiin qiimahan waxaa rajeynaya down trade maadaama uu ku jiro down trade markuu hadduu ku jiro hadduu arleed insha allah qiimaha in here 1.07025 inuusa dhaafi doono hadduu arleed insha allah. waxaan rajeynaynaa in tomorrow markii suuqa la furaba inuu dhammaystiro, oo haddii intaanba hoos usoo dhaco uu soo dhammaystiro in qiimaha ab kor loo celin doono oo ixtiraami doono supportiga. after that in laga faa'iideysan doono scalping oo ku fiican yahay isagana insha allah. waxaan kaloo tegaynaa hadduu alla idmo Canadiankii waxaad aragtaa isbuucii hore in deelkii ay galeen muxuu ahaay allahu mustacaan maraykanka in qiimihii up uu ahaay. after that qiimihii haddana structureka resistancega this area oo qiimihii uu soo laabtay. Euro Canadian, pound Canadian, USD Canadian aad aragteen inuu qiimaha up noqday masha allah. In this here waan kaga faa'iideysta aniga. hadda waxaad rajeynaynaa inuu inta imaado, qiimaha inta hadduu imaado insha allah oo ixtiraamo supportigaas oo support uu ka dhigto. after that inuu qiimaha mar kale isku dayi doono inuu up that area hadduu alla insha allah tacaala inuu Canadianka tago. USD Canadianka isagana aan fiirino hadduu alla idmo. USD Canadian waad aragtaa inuu qiimihii Canadianka aan soo aragnay structurekiisa isagana structurekiisa markii aad u fiiriso supportiga waxyar fake break out buu sameeyey oo dailiga oo kale haddii aad fiiriso fake break out yar buu sameeyey saacadaha yarka waad aragtaan qoyga sirka buu kasoo baxsaday. after that dooji yar waa qiimihii pulish buu galay. xitaa haddii maalintii aadan ka faa'iideysanin allahu mustacaan arbacadii khamiistii iyo jimcadii waxaad aragtaa sida khamiista waa I think in qofku wax fiican oo kasoo geli karo xitaa. marka maasha allah intaas qiimaha waxaan rajeynayaa USD Canadian inuu asagana inta laga soo celiyo hadduu alla idmo. USD Canadian in this area sell hadduu resistancegaas oo cishto insha allahu tacaala. another sell kaasoo ku aadan 130 pips areas hadduu alla idmo insha allahu tacaala. quickly USD switch oo asagana last week aan sharaxnay taas la fiirino USD switch in this area waan ku sugayay, laakiin wax yar uu benguri qiimihii oo ka baxay. already stop losska isaga hit buu ku sameeyey 60 pips. marka alxamdulilah waxaan rajeynaynaa mar kale in qiimaha haddii USD switch in this area down trade buu ku jiray, laakiin hadda up trend buu isku bedelay. waxaad aragtaaba last week iyo isbuucii ka horeeyaba inuu qiimihii up oo ku jiray. so haddii in this area 0.9984 in laga soo celiyo, haddii aan laga soo celina qiimaha sida uu sameynayo oo ku xiro waxaa waa pin bar buu sameysanayaa in qiimaha uu sida dollarka lagu xiray jimcadii Fridayda hoos baa lagu xiray in qiimaha then oo siga soo aado
supportiga soo aado insha allah. After that qiimaha up to here oo gaaro 1.052 ilaa 50 areas uu gaaro insha allahu tacaala. isagana waan rajeynaynaa. haddii aan fiirino USD USD yanka asigana haddaan fiirino waxaad aragtaa in header madaxii iyo garabkii bidixda iyo garabkii midigta ah inuu samaystay. So waxaad aragtaa in qiimaha uu hadda sell ku jiro. bin bar xitaa aad aragto in qiimaha rejection uu sameynayo oo hoos ay vampire kii uu ahay. haddii aad aragtaan marka insha allahu tacaala marka waxaan rajeynaynaa in qiimaha welibana xitaa I think nin vampireka intuusan soo bixin waa kana nin vampireka intuu ku aadan yahay intaan kan marka qiimahana hoos buu ku xiray meeshii lagu furo mooyaane. marka insha allahu tacaala marka waxaan rajeynayaa in qiimaha ilaa inta retest uu kusoo sameeyo 113 insha allah. dailiga haddii aad u fiirsataan xitaa waa kaya oo qiimaha resistance ku gaaray, then qiimaha correction lagu sameeyo maadaama uu resistance oo jibiyey resistance kale. so marka insha allahu tacaala afartiisa saac waa sidaas. 1 hour kana haddii aad aragtaan isagana waa kana waad bin barkaas waad aragtaan qiimaha rejection lagu sameeyey madaxii labadii garbood. marka in qiimaha mar kale in ilaa inta uu gaaro baa la rajeynaya meelahaas, then in qiimaha uu insha allahu tacaala uu soo dhammaystiro sell inuu dhammaystiro baa la rajeynaya insha allahu tacaala 113. after that qiimaha ilaa 11290 qiimaha supportigaas hadduu xijiyo ab baa la rajeynaya isagana insha allahu tacaala inuu mar kale oo ab noqdo hadduu alle insha allah ilaa 115 xitaa inuu gaaro weegan suurtagal weeyaan. marka waad ku mahadsantihiin daawashada videogan. subscribe, like, share and comment. gambaleelkan ayaa la hilmaamin si aad ula socotaan anytime oo aan soo dhigo casharada nooc walba u kala baxaan.